بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك. maanta waa mar kale kulamadii wadatashiga siyaasadda qaran ee dhalinyarada isboortiga ay waday wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. waxaana maanta wadatashiga qayb ka ah oo loo fadhiyaa dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba inay ayaguna fursadan ka faa'iideystaan, ayagana kusoo darsadaan wixii talooyin ah inta aan wadatashiga ku jirno. xilligan wadatashiga aan ku jirno waxaa lasoo ururinayaa siyaasad qaran oo dhammaystiran haddii ilaahay yiraa oo loo dejiyey dhalinyarada Soomaaliyeed iyo isboortiga Soomaaliyeed. aasaaska siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waa xoojinta waxbarashada, tababarada iyo xirfadaha, waa shaqo abuurista, ka qaybgelinta dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada, nabadda iyo nabadgelyada, xoojinta isdhexgalka bulshada, caafimaad iyo tayeyn noloshooda, ilaalinta iyo badbaadada dhalinyarada iyo wixii lamida. dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba iyo siyaasadda marka dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba waa dhalinyaro si gaara ay u taabanayso siyaasaddan qaran ee dhalinyarada loo dejinayo haddii Allah awoodda la ogolaado. maxaa yeelay waa dhalinyaro nugul oo u baahan garab istaag xuquuqdooda in lagu raadiyo. siyaasadda qaran waxay aas-aas u tahay muujinta doorka xuquuqda iyo waajibaadka dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dadkiinan baahiyaha gaarka ah qaba. maanta idinka ay hor fadhiya wadatashigai siyaasadda qaran aad qayb ka aheedeen loo fadhiya. waxaa la rabaa fursaddan marka haddeer markii shirka noo furmo wixii ka dambeeya inaad taladiinna intaad qodob loo dul istaago aad taladiinna kusoo ururisaan qaabkii iyadoo dhammaystiran loo soo ururin lahaa dhammaanteed. taasaa marka sabab u ah ka qaybgalkiina inaad talada wax ku darsataan geedi socodka siyaasadda qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed. dhalinyarada dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan siyaasaddani idin ballan qaadaysaa inay ilaaliso dhowrtana xuquuqda aad ku leedihiin, xuquuqda aad sida gaarka u leedihiin iyo guud ahaan dhalinyarada iyo dhisidda mustaqbalkiina haddii Allah awoodda la ogolaado. annaga ka wasaarad ahaan dhalinyaradii isboortiga waxaan ballan qaadaynaa, hortiina ka ballan qaadaynaa, ilaahay hortiisna ka ballan qaadaynaa inaan raadinno waxyaabaha aad ku heli lahaydeen sidii qodobo idinka idin quseeya ilaa dib u eegista dastuurka laga gaarayo dadka baahiyaha qaba ee xuquuqdooda ku heli karaan. wayna ka go-an tahay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo haddii allaha awoodda la ogolaado si ay u caddaato xuquuqda dhalinyarada ay ku leeyihiin dalka guud ahaan. siyaasaddan qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxay qeexaysaa kaalinta da'yarta ay ku leeyihiin bulshada dhexdeeda, gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. haddii Allah awoodda la ogolaado markan waxaan jeclahay in aad maanta fursad baa idin hortaalla weyn inaad fursaddaas laga faa'iidaysto oo lagu soo gabagabeynayo soo ururinta la tashiga siyaasadda qaran. gabagabadii waxaan dhalinyarada Soomaaliyeed u muujinayaa in ay yihiin ay caddahay lafdhabarkii ummadda Soomaaliyeed. haddii Allah idmo ilaahay soonka noo qaboojiyo, ilaahay acmaasheenna hanaga aqbalo, ilaahayna si nabadgelya iyo caafimaad sida hadda ku socdo ilaahay ha noogu dhammaystiro. waxaan leeyahay allahumma waffiqna fi laylati qadr mubaarak insha Allah. guulaa idiin rajaynaa. shirkuna waa noo furan yahay. wabilaahi tawfiiq.